السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسروا على قليل جزاني سمر والبكرة سعتان علمي كمبيوتر كي برامج ملتي ميديا عشركة محوك سبسين سي الله سميو بروتوكول كارد ديزاين ماركيت انت بدن waxaa loo isticmaala بروتوكول كارka xafladaha dadka inta badan adeegyaasha loo geliya ama dadka soo dhaweynaya ayaa loo isticmaalaa sida loo nashqadeeyo ayaan kula wadaagi doonaa insha Allah. haddii aad ku cusubtahay channelkeena fadlan subscribe like share si asxaab badan ay ugu faa'iideystaan adigana aad ka mid noqotid mar walba daawadaha ugu horeeya daawada fiidiyodeeda soo gudbino. anigu aan isticmaalin waxaan adeegsan doonaa photoshopka. okay, marka ugu horeysa waxaan tegaynaa file new ayaan leenahay, kadibna waxaan tegaynaa meesha printer ayaan dooranaynaa, kadibna waxaan dooranaynaa a5 ayaan dooranaynaa. haddii kale a5 computerka ugu barnayni oo caadi cabirada uu kugu soo bandhigayni millimeter ayaa dooranaysaa, kor 148 hoos waxaa ka dhigaysaa 210 resolution-kana 300. kadibna create ayaa leedahay, control 0 leh, kadibna loogada tag kasoo drag garay qaybta kale tag inta keen, kadibna control t leh weynay loogada ku weynay wax badan kaaga baahna kan design-kii sameyso ama u leh, kadibna qayb yariiso oo menus leh, kadibna saan qabso. okay, control t leh saas drag garay, kadibna colorka ka bedel ama colorkaas dooro, control j leh kan hoos tag, kadibna colorka dooro, kadibna pen tool isticmaal markaan, kadibna sax saar. pen tool waxaa kaaga caawinaya nashada saa adigoo aliftid ay noqonaysaa. waxaa ujeedaa hadda waa iska drag garay kon new leh. meeshan waa inay shib ahaato markii la isticmaala pen toolka. meeshana kali ku siinaysaa, meeshan aa imaanaysaa, haddana saas u drag garaynay, kadibna saas u qabo kali ku sii kali. okay, sax saar, kadibna kali ku sii control t leh banaanka wax bixinaysa ka dhig, kadibna gudaha usoo geli sax saar. okay, kadibna waxaad qoraysaa qaybtan protocol card laakiin farta bedel ka dhig kalarka loogada. fartan waxaad tiriyay 36 say bold ama black protocol card kadibna control a center dooro, kadibna dhexda geyso, kadibna saa adiga aragtida ka dhigi kartaa targeted bold taariga ka dhigi kartaa, size-ka waxaa ku dari kartaa, kadibna sax saara, kadibna number qor. numberska ayaad qoraynaa. inta numbers aan qorin text dooro, kadibna waxaad doonaynaa farta black size-keeda waxaa rabta ka dhig adiga leedahay, kadibna number dooro, enter dheh. number markaa qortid eber hal size-keeda waxaa rabta ka dhig. okay, kala kali ku sii meeshan protocol card-kan waxaa umaleynaysaa inay zaid kala fog yihiin, kadibna sax saar, kadibna isku soo dhaweey, numberska select kali ku sii meeshan 64 72 ka dhig ama 100% ka dhig, control x haddana, kadibna kali ku sii meeshan farta bedel kalarkeeda, kadibna sax saar ama dooro, kadibna kali ku sii haddana qoraalka qor ama soo gabiyeysi ayaad dhigaysa meeshan. okay,
labadan isla select garay control A dheh center gey control D dheh tana protocolka iyo kan al qabana control A center yala geyna control D kadibna loogada qabso control J dheh control J waa qabtay control T aad ku weyneynaysaa loogada control A iyadana centerka gey loogada control D dheh waxaad dhigaysaa opacity 20% ama 30 ayaad ka dhigaysaa 100 kadibna qoraal yar ayaad ku qori okay qaybta kor soo marsii shape-kan hoos u jira kadibna walaalna la ilaalina size-ka yaray waxaad ka dhigaysaa regular ayaad ka dhigay intana size-keeda waxaad ka dhigaysaa 12% ama 20% walaalna la dhowr waxay meesha kadibna control T dheh soo weynay walaalna la dhowr nidaamka kadibna sax saaro control T dheh xageeda protocol kaarka sidaana loo sameeyaa wax badan oo kaaga baahno intaas ayaan kusoo gabagabeynayna haddii aad ku cusubtahay channelkeena fadlan subscribe like share si asxaab badan ay ugu faa'iidaystaan adigana aad ka mid noqotid mar walba daawadaha ugu lahayd daawada fiidiyowyada aan soo gudbino